markaa dadka wuxuu sheegayso dadka inta lagu soo xirxiro lagu soo jajuubo hoy waa lagu xarayn karaa dad deetana waa lagu dhigi karaa rushay laakiin arrinta maqalka ayaga iskale qofka haddaa lagu sheegin wax anfaca oo halkaan aad iska qaylinayso aad taagan tahay maskaxdiisu bakaaro u tirsan wuxuu leeyahay xisaabtiisu u kay dardar u leeyahay muuqaalkiisuna meesha kuu fadhiya waxaad faa'iidaysaa marka ma jiraan dhanka waxaan rabaa ardayda inaan kusoo gabagabeeyo kadibna waxaan rabaa intaan dhanka ardayda u gudbin oo qaybta gabagabada aan gaarin inaan soo dhaweeyo ustaad cabduldiif xirsi oo ah tababare dhiirigeliye inaan soo dhaweeyo ustaadka soo dhaweeyo ustaad السلام عليكم قلب ونكسر وفي عندي صباح وهي طبعا وقت جوات يعني أكرومية هي سدح دقيقة واحد كسي منه ولا إيش جاي يعني هذا الكيجن أنا مسوق هو أركاني بقى يقول حلي هذا عبد اللطيف حسي وإحنا أي بروفيشنال سبيكر مدة كسي من سدح سنة وحن كشقينا يا رمهان هرمونين تأذنها وقت كان وحن أجاسمه إيو أساسك هاي معك كلي هرمونين تأذنها كشقية مجالات مش كفران اللي هم عابو ماين سكسس سيتي أنت نيا مغلي ماين سكسس سيتي thank you marka macad kaasaan xilligan waxaan ka ahay agaasime iyo asaaseed hawlihiisana aan gacanta ku hayaa professionkayga ama shaqadayduna si kooban waa arrimaha tababarada waxaan rabaa marka anigu arrimaha siyaasadda iyo waa laigi yaro fiican yahay mawduuca qaybtiisii hore ee ahayd public speaking ama fagaara ka hadalka wax la xiriiro ayaan rabaa hal qodob inaan ka iraado deetana waxaan rabaa meesha inaan ka degaan rabaa hadduu ilaah iraado أنا waxaan dareemayaa wax badan oo aad hadda dareemayseen aan dareemayo markaan meesha fadhiyay qodobkan waa markaan aan ka hadlo wuxuu yahay in badan yacni waxaan aragnaa dad masraxyada taagan oo hadlaaya qaylinaya dadka meesha fadhiyana boring ay dareemayaan arrinka noocaas ma aragtaan ama qof halkaan taagan oo hadlaaya oo leh waay la ii dhegaysan lahayd waay loo sheekeynaya waay dadku yacni ay u hamaansanayaan dadka maahan waa asaga problemka dadku maysan abuurin waa qofka halkaan taagno suu ku abuuray marka waxaad ogaataan intiina halkaan fadhisa jecel inaad noqotaan speakers ama horeyda u ahaa mar allaale iyo markaad dadka hor taagan tahay haddaadan dadka u sheegin wax anfaca oo micno u sameeya sabab ay ku dhegaysaan meesha ma taalo anigu waxaan goobjoog u ahaa nin halkaan oo kale inta soo istaagay masrax yacni meel xaflad aroos oo laygu casumeed marka waa uu iska hadlaya hadda yacni meel buu ka hadlaa meel buu aadaa dadkii markaa boring waa ges way iska caagseen marka karfoonku inta iska dhigu wuxuu yidhi kolley anigi ma dhegaysanaysaan qof kale u yeertu dhahay macnaa anigi kolley ma dhegaysanaysaan qof kale u yeer macnaa dadku yacni cadow marku ku ahaan kuma xasdayaan adaa marka dadka u sheegi waayo wax anfaca oo soo jiitaa marka dadka adaa u sheegi waayo waxaa sii ogaataan markaa dadka wuxuu sheegayso dadka inta lagu soo xirxiro lagu soo jajuubo hoy waa lagu xarayn karaa dad deetana waa lagu dhigi karaa rushay laakiin arrinta maqalka ayaga iskale qofka haddaa lagu sheegin wax anfaca oo halkaan aad iska qaylinayso aad taagan tahay maskaxdiisu bakaaro u tirsan wuxuu leeyahay xisaabtiisu u kay dardar u leeyahay muuqaalkiisuna meesha kuu fadhiya waxaad faa'iidaysaa marka ma jiraan marka arrinkaa isaga ha laga digtoonaado anigu macadkaan hadda agaasimaha ka ahay muddo 3 sanaan yacni ardada iyo shaqaalaha waxaan barayaa cilmigan horumarinta aadanaha gaar ahaan koorskan fagaara ka hadalka oo aan mucaalimi ku ahay waxaan ka diiwaan gashanahay akademiyad waddanka maraykanka ku taalla oo la yidhaahdo New Skills Academy waxaan ka diiwaan gashanahay sidoo kale jaamacadda weyn ee maraykanka ku taalla MIT waa ka diiwaan gashanahay waxaan sidoo kale ka diiwaan gashanahay jaamacad Masar ku taalla oo la yidhaahdo IU saddexdaas meel aan ka diiwaan gashanahay saddexdana waxaan ka haystaa shahaadooyin certified oo haddii la google gareeyo magacaygo saddexan uu soo baxay marka macadkana hadduu ilaahay raabo waan kusoo dhaweynayaa intiina jecel inaad yacni speakers noqotaanna
ogaada dadku miisas iyo kuraas iyo dhagxaan ma maskax bay leeyihiin way fikirayaan way caajisayaan haddaadan markaa yacni si ku habboon aadan wax ugu sheegin it's up to you wax adiga kuu yaallo marka halkaas aan kusoo gabagabaynayaa thank you daawada haddii aad ka heshay muuqaalkan gaaban fadlan rukuma channelka si aad u hesho warbixinaha kale mahadsanid